salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu daawadayaal kusoo dhawaada warka telefishinka Somali News oo aan idinkaga soo gudbinayno stuudiyaha dhexe magaalada Muqdisho. Qodobadaad ku daawo doontaan wararkayaga waxaa ka mid ah wafdi uu hogaaminayo gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari ayaa maanta gaaray magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay. madaxweynaha Soomaaliland ayaa abaalmarino guddoonsiiyay iyo kulan afur u sameeyay ardayda kaalimaha ugu horeysa ka galay tartan quraan akhris oo ka dhacay magaalada Hargeysa. wafdi ka socda Puntland ayaa kulan aqoon isweydaarsi ugu qayb galay dalka Tanzania. gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee UCID Faysal Cali Waraabe ayaa eedeymo kulul dusha uga tuuray madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxda maamulka xisbiga talada haya ee wadani. hay'adda Hormuud Foundation ayaa deeq lacageed gaarsiisay dad qaxooti Yemeniyiin ah oo ka soo barakacay dagaalada ka socda dalka Yemen. intaas waa qaar ka mid ah qodobada wararkeena ugu door karoon qodobadan iyo kuwa kale oo faahfaahsan goor dhow u diyaar garooba insha Allah.